بسم الله الرحمن الرحيم warkii oo kala dhigdhigan dagaalada dhamaad diiday ujeedooyinkooda siyaasadooda cid dabada ka riixayso cid maal geliso magaca loo bixiyay warkii oo koobana maanta idin wada maalmihii dagaalka xoogaa maantay xaaladdu waa jawi degan markay tahay marka waa in aan kala dhigdhigna bal xawaad lama dagaal khawariij ku jira masahawiyi oo shaarka bedeshay dagaalkiisa ku jira intee baasho ka socoladay markii mid alla u kala kiciyo dadka hogaamiye maxaa la yiraahdaa xilka looga qaada dhacdadii hore u eg maanta xaaladda lagu jiro halkii ninoo dadka hogaaminaya dadka laga celcelinayo iyo shabaabka yaa dhow maanta labadooda yaa la qaadana war soo dhawaada barnaamijka la sheer gareeyo horta fariinta koobaad oo diraya waxa waayeen nimankii saan u wadno inay god galaan soo kama soo reebin god ha laga aqoto yaan laga tigin meeshana ha lagu ilaaliyo kelimadaha soo bixiyana ha la jibiyo yaana laga harin waxaan rabaa marka inay iraado mar waa dagaal iyo xabad iyo qori marna waa in la isweydiiyo baahashu meesha ka socolaada waa intee haddaan dib idin celiyo dagaal baa 2022 la galay nin baa alla u kala kiciyay oo dadkii ku daba dukadeen khawariij meeshii la geey waa la ogaay laakiin inta la iswareystaa la yiri kan marka meesha la dhaafiyo dadkaanu dagaalka siima wadi karaan mid kale hadda alla u kala kiciyay haddana kii hore jeeyta waa hadda sanbalusha haddana dadkii hogaamiye u soo baxay noqday qamiis kasta waxna lagu ballamayaa in xilka laga qaadayo anagoo marka ma khawariij aan la dagaalsanahay masan niman hawiye leeyahay shaarka bedesho niman xawaado leeyahay arki kara sidii ku saari lahaa dagaal qabiil markii ku saari waayeen shaarka bedesho magac khawariij la baxay ilaa hadda laba qabiil oo dirir waa laga tagay moogta cid anaga la dirirayna hawiye waayo oo shaarka bedeshay oo nimankan xawaadle sidii meesha uga saari lahayn rabo waxa tusaale idin kugu filan maalintii beeraya waa la joogay oo tiifiyada cadaanka uu joogeen in macallin maxamuud ka hadlay taariikhdii hore marka idin ku celiyo wixii ka dambeeyay waxa go'aan lagu gaaray taliyihii qaybta iyo taliyihii macawisleyda jaytii tawana in xilka laga qaado xawaadle dadka hogaamiye in laga horleexiyo haday dagaalka ku dhima diideen kuwa dhima diiday in xilka laga qaado dagaal in loo socon horta meesha ka cadde haddana sanbalo shaqa miis kasta waa la ballamay waa laga qaadaa leeyahay bal maanta ninka xilan qaada dhahayo ma dagaal shabaab u jeedaa mise dagaal qabiil u jeedaa horta waad ogtiin dhulkan ceel baraf iyo aadan yabaali geela lagu qali jiray waa duuleynaa la dhihi jiray xalfoole iyo tardan soo gubaynaa baa la dhahay ceel qoryaali jallaqsi u soconaa la lahay markay wadi waayeen shaatigii intii siibteen mid kale gashteen inta meesha ku dhimatayna hadda ayaga mid ka koreeya kuma jiro sida saxda beeniyaan la isku sheegin dadka runta loo sheego maxaad naga rabtiin dadka la yiraahdo 250 ka khawariijta oo meesha ku dhimatay hal xawaadle laba duduble iyo saddex mursada in marka laga reebo inta kale waa abgaal oo waliba hartay abgaal u badan maxaa marka been la isugu sheega hal Soomaali kala kuma jiro wax baqti meesha la soo dhigay hal xabbo Soomaali kala kuma jiro afar nin marka laga reebo duduble xawaadle mursada hubkoodii iyo ciidankoodii rarani saraakiishoodii xamargeen qofkii dhimo waayna xilkan ka qaadayna taageen marka shabaab waxaan way ka weyn tahay wax badan in iska celina shaqaha noo taalo xilkan lagu meerinayo habeen kasto la qaada leeyahay oo loo socdo shalay idinka sanbalulsho waa libaax hawiyo qof kale ma qabadhahay ariyada oo anagu waaba afyeen heraab dhayn maanta idinka idinka celcelihayna munaafiqnimada nimankaan idin sheega qofay boomboonana ayagu wadaana markaas dantooda ka dhaxarkaan hadhowna qofkii ayaga laga celcelinaa hadana ayaga baxbaxsade waa laga qaada waa inuu dhigaa waa inuu yeela maxay u yeelaan inuu dadkiisa watay arkeen aqligu ha shaqeeyo nimanka Hirshabeelle leeyahay oo mashruuca oo soo shaqo tagaayo oo inta geed gadaal fadhiista dadka dagaalka wada anaga inoo shaqeeyaan dhahay hal iska celiyo waxaan rabaa inaan idin weydiiyo maxaa markii dagaal la galo khawariij la sakiyo Hirshabeelle tooto u soo xiratay ayaa iga jawaabi karo mar walba marka kale ma xirtaan nimankan in ay caliskay anu waxba qaba oo soo jeedi lahayba xilka waa qaadaynaaba afkooda hadii ka yeertay waxa ay yihiin iyo waxa niyadooda ku jiro iyo sidii damacsiin waaba noo sheegaanba inaba la iska sii casilaba anigu qabaaba sideedaba la iska sii casilaba xabisku kaayna darsan horto aan kala dhamaano soo ayagu ma dhig hadii khawariij yihiin waa ka adagnahay hadii caadi isku soo mutaxaan waa ka adagnahay marka
أيوة ريه بلا تحبا مقادي كرانو كبهو ذي كعررة تجاندو دنا وكعررة هدي قواريج النقدان نوا إسلاسيجي شلع عررة إسلامات أنا وعررة وكجود كدير خداي وبديل كوت وحي هنا بإسكير dadka ay soo dirsadeen markuu ayaga u shaqeeyo oo meelaha taagtaagan oo ka hadlo aan hadda irino ayagaas hadda maanta lagu shaqeysto meelaha ka hadlaya ka roorey waxaan dabageedkaaniyo haddii biri ilaahay u kala kiciyo hogaamiye xawaadla noqdaan isla ayagaas maanta wataa biri laga celcelina si toos ah looga celcelina waxa ay ku rabaano kaliya marka aad dantooda ka shaqeyso waxay aad ku nicbiin marka dantaada ka shaqeyso qof indhaha laayna ma jiro qof dhagaha laayna ma jiro sida saxda ah irshabeel horta inaan haaqna waa loo baahan yahay dagaalan hadda ku jirnaa wax la yiraahdo male dagaalku ma dhamaanayaba sida Xuseen Caydid idin sheegay inuu dhamaadaha sugin laakiin kuwa ku qasaayo oo kula jira kaajiraha la yiraahdo iyo shabaabku inaan isku dhax wadna gacmo badan waa inaan yeelanaa hebelo xilligaadi maahan hebelo hadda hadlaysid xagga ka soo hadal hebelo hadda maamul hebelta meeshu ka shaqeeya tag dagaalkan aan la bijibaarno anoo qawaariij waa ka adagna laakiin dad aan nagu kor haayo dad oo mashruuc u yahay waa la baakimaa sidii makiintii cajiinka ee ninka ka shaqeeya beerta soo falnaa awalka dambana markii galeyda iridda la soo tuuro saf la soo galo makiinta la daarayo kale markii la rabo waa la baakimaa markii la rabana waa la dhaqaajina waxaas daalisa la yiraahdo in bariisa la kala baxaa fiican intii dhimar rabtana dhimato intii dhaawac mi rabtana dhaawacanto la kala dhamaado laakiin in la baakimo oo la yiraahdo maalinba ninka hogaaminaa waa in xilka laga qaada xoogaa oo dagaalku baakin gala biri hadana baakinka laga soo furaa beesha caalamka gacan wax looga cunaa la damiyaa haddii la soo wada tagane waxa naga dhamaanaaye waa ka qaadayna ninka hogaaminaya waa ka qaadayna khawaarijtu dhamaynaa mar rabna inay dhamaato aqli noocaas ah jira waa inaan fahmi karno wixii jiro inaan u jeednaa haddii dagaal daawadiisa la rabo maxaa mar walba qofka hogaamiye xilka looga qaada haddii la rabo in khawaarijtu dhamaato loo socdo loo jeedo la aadayo maxaa mar walba qofka hogaamiye xilka laga qaada loo yiraahdaa horta xil qaadaysi cid kaleba xilal anagu aan isku magacaabnay waa inaan samaysanaba iyo dawlad anaga noo gaar ah laakiin dhibku wuxuu ka imaanaa meelaha lagu dhufana sanbaloshaan iftirkiisu eed weyn u leeyahay wallahi eed u leeyahay waxay tahay maalintii xasan sheekh maxaas imaanay oo la wada socday oo la wada duubnay heshiis la galay jiray oo ahay hiiraan isteedna la sheegin hirshabeelle la sheegin dagaal shabaab laga wada hadlaa leeyahay heshiiskii intuu ku dambeeyay hadda hirshabeelle waa ordayso oo dagaalka dhex ordayso oo khudbaynayso oo socotee yaan maamul bal sheegin dagaal laga wada hadla soo iskuma ogeyn waagi maxaas joogay sanad ka hor isla asaga sanbaloshaa shirku wili socdo wuxuu yiri waxa dhan daanyeerkana saana kana madax libaax kana inta ku dhacday asoo xil nabad sugid ku raadinayo okay ku yiraan hadda naga soo afjaraysa nabad sugid waa ku dhibeen laakiin marka naga soo afjarto waa ka qaadayna dadku markay sagaal wajis aas u leeyeen marka waxa la rabaa in waxba lagu darsanba maxaa wax ugu darsanaa anagu maxaa wax ugu darsanayna maxaa xukun nooga dhaxay karaa nin la xukumo oo qawaariij haysato haddii qawaariij ayaga xukunto sidee anagu ayaga xukun ugu darsanayna maxaase shabeellada dhexe mar walba looga soo noqdaa inta la ag taga looga soo noqona war haddaanad xoolaha soo dhici karin oo gurigaad aragta aanad soo gubi karin oo qofkii socda aanad soo dili karin oo aanad cadowga si fiican iskaga celi karin waqtiga iskaga dhumin dagaalka waa in la afjaraa meesha laga soo duulaa waa in la afjaraa godadka ka carray sida loo duuga guryaha iyo ceeshana waa in loo soo duuga laakiin ma ahan dirisana diris waxaan qawaariij ahayn oo nahay ma maanta jiro ilaahay idinku dhaariye ayadoo cid la mucaaradayn oo cid lagu xumaynayn oo si kala warka loo dhigay miidan qawaariij ahayn oo diris nahay maanta jirto oo caadi oo meel degan oo dab kala qaadano oo nabadoo heshiis ma jirto waa maya saddex diisar gaalo mid ka ugu yaro 100 tignika wato 5,000 oo kiiloomitir ka soo wareegtay ma dagaal qawaariij u socdo waa maya haddii loo socdo saldhigga mabaax iyo tarda iyo dhulkan oo aadan yabaal u muuqdo iyo ceel qoryaale tignikadii ciidankii soo jabay inta talis looga dhigo la isku celiyo rogaal celis la wada qaadilaa kuwa dagaala hadda iyo kuwa 5,000 ka soo wareegto wada socdo rogaal celis aadan yabaal lagu qaadilaa qawaariij mabal loo socdaba reehebel waxa looga halay u dhisan yihiin hubkana waa la siiyaa dhaqaalahana waa la siiyaa wiilashana waa loo soo aruuriyaa
وما بجر تبع واحد خواريج اللي يراو صومالي ولا دجال سنتا صومالي ولا يعني دهن سجال كونوا عسكري والدولة ده يشن كونوا خبيلة أنت الصوب بقول أو هو وهذا جمال كجبته ما بكجبين وما بكجبي كران أنت عشان تجيبي كرتها هدي عادي تولد كل قصة عيدا كلا تجي جري وحوار الله قال جري وأباب ولا سمي جري ولا الرجال العلي جري أو دجال القرشي جري محيط أوحى أنت الله رارو مليون قبيل أنت هل كاس حوالله لمرسيو هبر قدر لمرسيو مريحان لمرسيو الصفرة لمرسيو الشيخان لمرسيو مجارتين لسوم مرسيي هل كاس أنت بدل لقاتسي حمر لقينا محيطها أنا دجال الله صعب بكو عضايا محامر كان أنت تكي كصعد هذيك وجو خد بينا مرك هدو دجال ربع محو عرري شكرا أنا وحن آد ولا يا مركان فيري وحايسري محيط عينك أنا شالوا اللي بيع على ما أنت حيل كيس ده بس عضان ما أنت يروح حوالي إنها أكل فرها الودي الدنيا نما كان والله بالله وأطلع مالك أيجي تودك شقيسيك وجعلي هنا اللي بحته ما أنت هذا كشقيس الدنيا رتلوهم بام